ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. anshaxa 15aad waa waxaan u tukanaa oon xasuusanaa Ilaahay. Bar ilmahaaga in ay salaadu tahay tiir ka mid ah tiirarka Islaamka. Sidoo kale waxaad bartaa in uu ducaysto. Tusaale ahaan, waqti badan geli in ilmaha yari uu ku arko adigoo tukanaya, ducaysanaya, marmarna iska ducaysta sabab iyo sabab la'aan. Ugana sheekee ducooyinka Rabbi ku ajiibay ilmaha yar. Ogow waxaa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxa aad u tukanaa oon xasuusanaa Ilaahay. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba, si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.